gabadhan aad aragto hadda wiji ahaan iyo muuq ahaan inaadan aqoonin bay ila tahay magaceeda haddaan kuu sheegana laga yaabo in badankiin aadan garan balse waxaan hubaa in aad si fiican u taqaanid weliba ay ka mid tahay dadka aad ku faantid waxaase si fudud u ogaan doontaa gabadhan weli maskaxdaada aysan fahmin haddii aan kuu sheego shaqada ay soo qabatay magaceeda iyo waxa qof ahaan ay u tahay dalkeeda waadna garan doontaa qof ahaan waa gabar balse karti badan adag shaqo adagna qabatay taariikhna u soo hoysay dalkeeda marka hore ku farax gabadhan waa Soomaali magaceedana waa Asli Xasan Cabaade buulo burda hiiraan bayna ku dhalatay kuna soo hanaqaaday waana gabadhii ugu horeysay taariikhda Afrikaan ah kana soo jeeda qaaradan Afrika oo duuliye noqota iyo xitaa wadamada bariga dhexe oo dhan taariikh bayna sameysay qof ahaan mana jirto haweeney Afrikaan ah oo ka horeysa inantan waana halyeeye dadka Soomaaliyeed ee ku faanaan markii ugu horeysay ee diyaarad duulisa waxay ahayd 9 Sebtembar 1976 ilaa 1992 ayayna ahayd duuliye heer sare ah kana tirsaneed ciidanka cirka Soomaaliyeed qof ahaan waa gabar balse karti badan adag shaqo adagna qabatay taariikhna u soo hoysay dalkeeda taariikhda gabadhii koowaad ee Afrikaan ah oo duuliye noqota ayayna noqotay muuqaalkan kaliya ma quseeyo gabadhan mana ka turjumaya shakhsiyadeeda balse wuxuu quseeyaa kuna socdaa adiga i daawanaya rag iyo dumar midka aad tahay aniga iyo qof kasta oo Soomaali ah si aan u sameeyno taariikh la mahdiyo lana diiwaan geliyo ee horay aan u socono haddii aad taageersan tahay gabadhan kuna faantid dal ahaan iyo dad ahaan hal meel ka soo wada jeedaan laagsaar muuqaalkan ku saabsan iyada lana wadaag saaxiibadaada kale ee iyaguna ku faana si iyaguna u daawadaan waad mahadsantahay in badan